sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayna degmada Balcad waxaa halkaasi si dirqi ah uga soo baxsaday taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadaq John kadib markii ay go'aansadeen ciidamo gadoodsan in ay toogtaan ciidanka militariga ee maanta ka soo baxay furimaha dagaalka ayaa caawa fiidkii hareereeyay gaari uu saarnaa taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadaq John oo ka mid ahaa wafdigii wasiirada iyo saraakiisha ee maanta gaaray Balcad ciidamadan oo ku weysnaa gaadiidka dagaalka ayaa sheegay inuusan taliye Saadaq John tagi doonin degmada Balcad ilaa la siiyo qoryihii uu kala wareegay xilligii howlgalkii xasilinta Muqdisho janarka calanka Soomaaliya ayaa loo xaqiijiyay in Saadaq John uu hoos galay mas'uuliyiintii la socotay isla markaana uu gabaad weydiistay intaasi kadib wasiirka amniga Islow Ducaale ayaa xaaladda soo farageliyay kana dalbaday taliyaha ciidamada in ay xaaladda dejiyaan wixii qori ay ka maqanna uu bixin doono dhanka kale war degdeg ah oo hadda ina soo gaaray kooxaha huwaysan ayaa goor dhaweyd askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho dilkan ayaa ka dhacay isgoyska Manabolio degmada Shibis ee gobolka Banaadir sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogyaal kooxo bistoolada ku huwaysnaa ayaa fuliyay dilka waxayna ka baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay dilka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya waxaana goobta laga qaaday meydka askariga amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa xumaaday maalmihii dambe waxaana lagu dilay askar iyo shaqaale dowladeed waxaana inta badan sheegtay xarakada Al-Shabaab ayadoona ilaa iyo haatan qof loo soo qabtay aysan jirin